ciidamada dowladgoboleedka Jubbaland iyo kuwa xooga dalka Soomaaliya oo gacan military ka helay ciidamada nabad ilaalinta AMISOM ayaa howlgal ka sameeyay deegaanka Beerxaan oo kamid ah deegaanada hoos yimaado magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. ciidamada huwanta ayaa al-shabaab kala wareegay deegaankan iyagoo wax khasaaraha aan kala kulmin sida ay noo xaqiijiyeen saraakiisha hogaaminayay howlgalka. qabsashada deegaanka Beerxaan kadib ayaa saraakiisha waxa ay sheegeen inay halkaas kula kulmeen odayaasha dhaqanka iyo bulshada ku nool halkaasi waxayna u xaqiijiyeen in ay ka shaqeynayaan nabadda. ciidamada xooga dalka Soomaaliya iyo kuwa Jubbaland iyo AMISOM ayaa dib uga soo laabtay deegaanka Beerxaan howlgalka kadib. bayaan ka soo baxay maamulka Jubbaland ayaa lagu sheegay in deegaanka Beerxaan ay ururka al-shabaab u ahayd meel ay ku kaydsadaan hubka isla markaana kayd u ahayd. taliyaha saldhigga 43 ciidanka xooga dalka Soomaaliya Jenaraal Muxiidiin oo khadka telefoonka ugu warramay TV-ga Bulsho ayaa ka warbixiyay howlgalka ay fuliyeen ciidamada huwanta. ما حقي وحقص على بجران إذنك حوق دلق الصغال إذنك جبلان أيام يشتقي حتى قاني وحاوي ضدك شعب كانوا سبعك ورضغمين يمكن كانوا ميشة دقان هينا وحاوي سلقودي يكون عايز ميشة وانبربرني وحكا لو قصارة وجران مجران أشاف وجوين وانا كعيرنا ميشة كعرين وانا dadka deegaanka dhowr jeer oo tagna hore wajiga ku tagna wajiga ku ahaa hadana wajiga ama kaga soo tagnay wala keenayeen wax dhawaataan ma jirin waa ka soo noqday deegaanka xalay ka soo galno waa ka antu waa hadda jiraan iska caadi Jubbaland deegaanka asana waa control oo socda xaaladda meesha. howlgalkan ayaa qayb ka ah howlgallada ciidamada huwanta ah ay ka fuliyeen deegaano iyo degmooyin hoos yimaado gobolka Jubbada Hoose iyo Jubbada Dhexe. Zakariya Abdi Qaadir Karzai TV-ga Bulsho magaalada Kismaayo.